wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad daroon ah oo aan la xaqiijin cidda iska leh ee gelinkii dambe ee maalintii shalay ay laba jeer ay dul martay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo ku taalla degmada Shibis ee gobolka Banaadir ila wareedin lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan hay'adaha sirdoonka ayaana sidaas inoo xaqiijiyay. diyaaradda daroonka ayaa la sheegay inay aad ugu dhawaatay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka korkeeda taasina waxay hogaamisay in ilaalada goobta ku sugnayd ay rasaas ay ku furaan sida macluumaadyada ay noogu xaqiijiyeen qaar ka mid ah xubnaha hay'adda ka tirsan ee ku sugan goobta. ilaa hadda si dhab ah looma xaqiijin karo halka laga leeyahay diyaaraddaasi daroonka ah oo ah kuwa aanan ciidi wadin ee remote-ka laga hago sidoo kale lama oga halka ay ka soo kacday balse ila wareeddo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxay noo xaqiijiyeen in la tuhunsan yahay in diyaaraddaasi laga leeyahay mid ka mid ah dalalka Carabta. macluumaadyada kale aan helayna waxa ay sheegayaan in diyaaraddaani laga kiciyo meel aanan ka fogeyn hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyadoo aan la ogeyn ujeedada laga leeyahay. diyaaradaha daroonka ayaa inta badan waxay yihiin kuwa duubi karaya muuqaalada waxaa kaloo ay fulin karayaan howlgallada weerarada loo adeegsanayo ee dhanka hawada. haddii diyaaraddaani ay xaqiiqo ee noqoto isla markaana laga yeesho mid ka mid ah dalalka Carabta waxay noqon karaysaa mid sii kordhin karaysa xiisadda u dhaxaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dalka Carbeed ee la tuhunsan yahay kaas oo xiriir wanaagsan aan kala dhaxayn dawladda. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa qoraal ay soo saartay 30 December laba maalin kadib qaraxii 28 December ka dhacay Ex Control Afgooye waxay ku eedeysay dal shisheeye inuu ka dambeeyay weerar ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye kaas oo lala eegtay mas'uuliyiin Turki ah. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qoraalkaasi markay ay soo saaraysay waxaa ka horreeyay wargeys laga leeyahay dalka Turkiga oo ku eedeeyay dawladda Imaaraadka Carabta in weerarkaasi ay ka dambeysay. diyaaraddaani shalay lagu arkay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo maalmo ka hor wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka uu daabacay warbixin ku aadan in al-shabaab markii ugu horeysay ay qorsheynayaan in weerar ay ku fuliso diyaarado taasi oo tuunka ugu badan laga qabay in weeraradaasi ay ka geysan karto dalka Mareykanka. laakiin su'aalaha ugu badan ee dhashay ayaa waxay ahayd sida al-shabaab ay suurtagal ugu noqon karto in weerar ay ka fuliyaan gudaha dalkaasi Mareykanka iyadoo warbixintaani loo qaadan karo inay tahay macluumaad sirdooned oo ku aadan in weerarkaasi la doonayo in laga fuliyo goobaha al-shabaab ay ku xoogan yihiin. al-shabaab ayaa weerar ka fuliya gudaha dalka Soomaaliya iyo dalka Kenya oo weerarada ugu badan ay ka geysteen. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyada kale ayaan ku eegi